qisadani waxay ku dhacday nin ku soo koray agoonnimo taas oo la noolay hooyadiisa hase ahaatee hooyadiisa waxay aad ugu dadaashay si uu u heli lahaa nolol fiican kadibna wuxuu dhameeyay jaamacadda ilaa heerka jaamacadda ayuu dhameeyay kadibna wuxuu bilaabay shaqada markuu bilaabay ka bacdi hooyadiis ayaa waanisay oo dhahday gabar guurso ahlu saaxiib u ah akhlaaq wanaagsan si kugu hagto wadada toosan Allah ka cabsanayso kuna xiran Ilaahay balse ha ahaatee asaga wuxuu u jeclaay gabar kale oo la dhiga jirta jaamacadda gabadhaas oo aan ahayn gabar wadada toosan haynin oo akhlaaqdeeda toosneen laakiin hooyadiis wuxuu ku qanciyay inuu gabadhaasi oo toosi doona wadada toosan oo gabadhaas oo quraanka iyo salaadaba joogtay doonto oo asaga ku hagaayo oo bedeli doono hooyadii hase ahaatee way ku qanacday arinkii oo waxay loo doonay gabadhii oo jeclaay wiilkii laakiin gabadha ma aysan ahayn mid ku qanacsan noolaashada wiilka hooyadiisa laakiin ahalkeeda ayaa u sheegeen inay tahawaayeel iska dhima doonto sanado ka bacdi waxba dhib problem gabadhaasi oo ka fikirin hooyadan iska dhima doonto asal maalmaha kamid ah ayaa waxa dhacday iyagoo miiska qalin isla wada fadhiyaan inay hal mar ka kacdo gabadhii oo aad qolkeeda wiilkii ayaa yaabay hooyadii danna wiilkii wuu ka daba baxay oo wuxuu ka daba tagay qolkii wuxuu dhahay maxaa kuugu dhacay gacliso oo miiska qalin ugu soo tagtay waxay ku jawaabtay hooyada u sameey meel gooni ah ay ku qadayso anaga nala qadaymayso mar dambe sababtoo ah hooyada tareedu waa wasaq wuxuu ku yiri tan waa hooyadeyda maxaa kuugu dhacay gacliso iyadii way diiday waxay tiri hadii hooyada tahay adiga ay hooyada tahay hooyadaada ma rabo in anaga nala qadayso miis qada gooniya u sameey hadii kala geey meesha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo sida hooyada lagu xanaaneeyo wuxuu ku yiri hooyadee waa waayeel aniga bis ayay dhashay maahan ina sidaatan u hadasho hase ahaatee hadda waxaan soo wacay hooyada iyo aabaha oo nacasuumeen waxay ku tiri aniga way soo waceen laakiin waxa ay naga rabaan ma ogin waan u tagi doonaa insha Allah danna wuxuu soo laabtay hooyadiis oo miiska fadhiso wuxuu ku dhahay hooyadii ayaa waxa tiri maxaa ku dhacay gabadha oo u baxday wuxuu ku dhahay way yara xanuunsan tahay Allah caafiyo waxaan aadi doonaa birito guriga gabadha hooyadeeda oo naga casuumay hooyadii wuxuu ku tiri waan aadeena hooyo insha Allah waxa la gaaray subaxii waxay aadeen gurigii hooyadiis hooyadeed iyo aabaheeda isla markaana waxa lagu casuumay miis qurux badan oo loo xardhay cunto aad u kala duwan isla markaana gooni waxa uu la baxay wiilka aabihiisa wuxuuna u sheegay wiilka hooyadiisa wuxuuna u sheegay in waxa dib ugu baxay gabadha aabaheeda wuxuuna u sheegay in talaba ku qanacsaneen gabadhooda hooyadeedu la noolaashaha hooyadaada la nooshahay ku qabto farxad la'aan murug haduu uu rabo gabadha inuu gabadhaas haduu rabo oo rajo ka leeyahay inuu u dhiso guri gooni ah oo dajiyo amba hooyadiisa kala kaxeeyo hadii kale wuxuu ugu cagujugleeyay aabii gabadha dhalay inaan gabadhan raaci dooni talaba wiilkii wuu isbedelay oo moralkiisa ayaa bedelmay danna asagoo jawaab ku soo celin ayuu soo baxay danna wuxuu imaaday miiskii qadadii lagu xardhay wuxuuna arkay in hooyadiisaba jooginba meesha wuu xanaaqay maxaa tahdin ayuu dhahay danna wuxuu u wacay hooyadiis oo caadiska ayaa waxay ka soo baxday meesha kushiinka iyadoo la cunaysa naagta shaqaalada ama jaariyada cuntada wuu xanaaqay wuu qeeliyay wuxuu yiri hooyo qofna ku doorsamaayo oo wuxuu ka dhunkaday sujuuda wuxuuna ooyay wuuna xambaaray hooyadiisa wuxuu yiri hooyo adiga ayay ku jirtaa lugaha hoosteeda jannada qofna ku doorsamaayo wadada toosan ee jannada adiga ayaa hooyo ii hagi kartid isla markaana asigoo xanaaqsan oo ooynayo hooyadiis xambaarsan ayuu irida kala baxeen qisadan waxay ka turjumaysaa gabdho badan oo dhahaya saddexdeena ma la noolaa karno waayo saddexdaada ugu noolaa karin soo wiilkan hooyadiisa ma ahan waa arin qaldan
bataatana sharciga islaamka aan diintan sal iyo baar aan ku lahayn in la soo hadal qaado amba doodahan oo kale laga doodo aan wanaagsaneen hadda waxaa jirta dood weyn oo qabatay Universal TV-gaas oo soo baahiyay doodaasina in laga doodo ma wanaagsaneen hooyo waa hooyo mar walbo diinta islaamka meel weyn ayay geysay oo 3 mar ayaa aaba laga xaq siiyo hooyo dunida wax lagu dooranayo ma jirto qof hooyadiis amba laga feegay karana ma jirto gabar iyo wiil guriga dhisan gabarta iyo wiilkaba hooyada xaquuq weyn ayay ku leeyihiin xaq diini ahaan marka hooyooyinka la soo dhaweeyo satii hooyooyinka la soo dhaweey jiray oo gol wacan xariir wacan loo dhigi jiray oo cunto ka macaanta la sii jiray shimeen noqoto hooyo wax xun soo hooyo waayay hoosadooda la sheegayo waa adigoo weynaatay gabray oo nin guursatay oo cunug dhashay marka ceeb ma laha hooyo waaye halkaas ayaa ugu baxay channelkeena hadaan ugu cusubtaan subscribe-ka naga hilmaamin laagta in share-tana waa xaqiina